بسم الله الرحمن الرحيم وبين أستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaa ilaahay aan uga mahad celinayaa safarkii dheeraa aan ku tagnay magaalada Muqdisho ee aan kaga soo qayb galay doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dhacday 15 May oo ku aadan maalin taariikhi ah oo maalintii dhalinyarada ah oo isleeyahay hadda kadib waxay ku asteysnaan doontaa xuska 15 May iyo doorashada madaxweynuhu إن شاء الله إن نقول دون تمد إسراع دونتا أولاً وحان ربا إن سور دوية دور الشغل أصل علي هي النتيجة ذي وحان ربا إن آذو بهاد عليو ونوهم بليايو مدحوينا حلك كوكو ليستمد مدحوينا حسن محمود وحان ربا وكلا إن هاد عليو مدحويني حلك كده محمد عبد الله فرماجو وسنة مدقلياه وأقبلي دور الشاسي إنه يودعه مسؤولية دينا سلاس كو أقبلي كنا وريتشي أنا أهيد حل وريتشين أما دور الشا تاريخي صوبته هولكي شرع الله وضع قرية يسوق ديبان ما أنت يسوق ديبان قرية يسوق ديبكي وعمدان آديات مسؤولين نوقف الحصنة وحكرنا نوقف مع علينا يا مدحوين حسن محمود باقي سيها ضد صوماليات وهشيسة دولadaha caalamkana la heshiisa horumar iyo amniga ka shaqeeya oo filaya inuu maanta ahaa qofka ugu khibradda badnaa intii tartamaysay aanan islahaa qofka ugu habboon ee maanta hawshaas geli lahaa buu ahaa taas aad baan uga mahad celinayaa una soo dhaweynayaa marka laga soo tago intaas waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta reer Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo oo culaysyo badani sanadihii la soo dhaafay ay naga haysteen gaar ahaan xukuumadda xilligaa jirtay iyo isqaqabsi siyaasadeed Jubbaland uma baahna isqaqabsi uma baahna siyaasadda iska hor yimaado wax culays siyaasadeed oo maanta qofna qof ku hayaa ma jirto waxaan u baahanahay Jubbaland mid ah shalay Jubbaland dib u heshiisiin iyo wax ku dhisatay maantana tiibaan diyaar u nahay ma jiro qof Jubbaland oo maanta aan intaa in lagu qabno waxaan rabnaa dadku inay iscafiyaan waxaan rabnaa in la isdhaxmaro waxaan rabnaa in qof waliba xuquuqda muwaadin ee uu leeyahay inuu qaato haddii ilaahay idabkeeda leeyahay waxaan rabaa inaan u soo dhaweeyo oo aan bilowno gobolka Gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kawnsiladii sidii qorshuhu ahaa markii horeba ay garbaari ugu horeyn doonto haddii ilaahay yiraahdo in maamulkii la daadajin doono inayna u baahnaanaynin hebel baa la soo magacaabay hebel baa la soo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda wad garanaysaan daadajinta maamulku saddexda leebal ee dowladnimo heer federaal heer state iyo heer dowladaha hoose iyo deegaano inay intaasba ay noqonayso jaro shaqada ugu badan ay ku dhacayso midan kawnsilada ama deegaanada dowladaha hoose la sameynaya haddii oo dadka waxa toos u matalaya ay tahay qof walba waxa uu qaban karaa loo dirayaa waxaan isku dayaynaa inaan dirno maamulo markaan dadka shir u qabanay la isu yeero kadib capacity u leh mug u leh qaadi karaya mas'uuliyadda dadku ay ku qanacsan yihiin haddii ilaahay yiraahdo waa la tegi doonaa mas'uuliyiinta oo dhan xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo cid walba oo gobolkaas iyo Jubbaland ka soo jeedaaba wasiirada wasaarad waliba waxaan rajaynayaa inay shaqadeeda geli doonto waxaan raacinayaa in gobolkaas oo mashaariicda iyo wax badan ay ka taagnaayeen maanta laga bilaabo la sii daayo oo loo bilaabo oo socoto dhammaan mashaariicdii ama heer state ha noqoto ama heer dowladda federaalka ha noqotee wixii gobolka ka baaqday in la dedejiyo haddii ilaahay yiraahdo dadkuna la iscafiyo qof maanta aan wax u qabnaa ma jiro qof walba oo wax tuunsan ama isla ama waxaa la isku qabtay ma aha idinka ma ahayn waxa la isku hayeen siyaasad ka baxsan bay gobolka waxa kale oo ku soo ururinaya culayska Soomaaliya jiray dhowr sano 4 sano la soo dhaafay waxa ciidamadu ay ku mashquulsanayeen siyaasado iyo dana kale waxaan rabnaa in loo soo jeesto la dagaalanka shabaab waxaan uga faa'iideysanaynaa waliba iyagoo ay hadda dawladihii naga caawin jireen go'aano qaateen in
arrinta la dagaalanka shabaab la xoogeeyo la awoodeeyo dagaalkaa lagu talagalo loo wada xayto inaan middaas soo dhoweyno waxaan u baahannahay inaan ku talagalno askariga annaga shaqo kala qabanaya maanta qoriga aan haynaye si kale loo isticmaalayay in kulligii aan isugu geyno la dagaalanka shabaab xor ma nihin deegaanadanadii baa la haystaa dadkaygii waa dhiban abaar hadday ku dhacday hadday fataxaad ku dhactona waxba uma qaban karayno aan culayska saaro waxaan u baahannahay hal qorshe dagaal oo Soomaaliya oo la qaado hal mar oo aan ku talagalno inaan midkaas kaga jawaabno shabaabna aan deegaanada kaga xoreyno biidinilaahi 3 bilood ma qaadanayso arrinta hadday aynu samayno marka madaxweyne xasan sheekh oo horeyna dagaalkaas qayb libax la uga qaatay garanaya wuxuu ahaa maanta ninku cusub aan ahayn waxaan aad ugu soo dhaweynayaa waana ka wada hadalay inay arrinta 1 iyo 2 iyo 3 u tahay in deegaanada la xoreeyo dhulka la isu wada furo shabaab si wada jira loola dagaalamo kaliya waxaan ku darayaa inuu noqdo mid qorshaysan oo hal mar la wada qaado kaasana cadawga kaga faa'iideysan karaa waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dadka Soomaaliyeed dawladana in la shaqeeyo waxa maanta inoo dhiman ay tahay inaan intaas kala uga sii dhawaano Jubbaland ay tahay horgal hadii Ilaahay yiraahdo waliba gogolaha ugu horeeyana iyadoo ay dhigi doonto aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.